maraya waxaan leenahay hanalaga hor wareejiyo ninka kan dheriga buuxsanaya afka buuxsanaya cid uu naxayo aan la arag hanalaga hor wareejiyaan war ilaahay kaan kugu ridiya wixii 25 sano 30 sano lagu soo tabcay xagee aadeen odaydayga ku tuur leh oo waxa weeyaan xagga iyo xagga bishimaha dhareerka ka daadinaya ayaa gabdhihii facahay aroosaya oo waxa weeyaan xilkii kugu qabsanaya war midooba oo madasha badbaadada ku biira oo meel kasta ku biira oo hadaa iska dhiciyo xalay madax xashiq waqtigaagu u dhamaaday waad gabagaboobay shalay farmaajo xabad ku ceersaneys maanta adigana in xabad lagu ceersada isku dayin madaxweynuhu hadduu aaminsan yahay iyo ragga la taliyaashu oo ku hareeraysan hadday aaminsan yihiin in kursiga xoog lagu joogi karo hadday aaminsan yihiin waxaan leenahay kursiga xoog kuma joogi kartiin annaga idin leh annagoo shacabka Soomaaliyeed baa idin leh gabadha hadda ka hor waxaa la yiri hooyadeeda foolataa la yiri waxay tiri hooyo sidaa looma dhalay sidaa u dhal dastuurkii shalay adii lagu soo doortay oo yani dadka ay kugu soo doorteen haddii aad diidan tahay dastuurka u socodina lagu midaysnayn horta culeyskeeda ay leedahay 15 May maxaa ka dhici karo gudaha caasimadda ee Soomaaliya mucaaradka ayaa diiday gogashii uu fadhiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halka European Union iyaguna ay sheegayaan in loo baahan yahay in wax laga qabto xaaladda siyaasadda Soomaaliya mucaaradka iyo bila Soomaaliya u sheegeen inay ka shaqeeyaan nabadeed isla markaana aan la isku horseedin colaado iyo dagaalo sababaya mar kale inay burburto dawladnimadii ee Soomaaliya haddaba shacabka Muqdisho sidee ay ugu hadleen xaaladii ugu dambeeyay ee siyaasadda iyo si lamid ah gogashii madaxweynaha uu fadhiyay mucaaradka iyo 15 May maadaama maalmo kooban kaliya ay ka harsan tahay sida ay ka yeeli lahaayeen dhalinyarahan iyo waxa ay ugu habboon tahay in xilligaas suuragal ay haddaba waa kuwa iyagu ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim horta 15 May hadii la gaaro waxa waaye shacabka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin in mataqana banaanbax nabadeed ay dhigaan oo banaanbax aan mataqana ay shay baawurta aan la hor istaageen banaanbax aan ganacsiga la dhibaateenin banaanbax aan hooyo Soomaaliyeed iyo baawur qof muwaadin ah uu wato oo dhibaato ay soo gaareen banaanbax aan ganacsiyada albaabada aan la iskugu dhufanaynin oo ganacsiyo aan la bilaqaysanaynin horta magaaladan ka dhacay midaan anaga waxaan u diyaarsanahay horta dawladdan hadda joogto oo uu hogaamiyo Xasan Maxamuud qof dhaaftay oo Ilaahay uunta malaha midaan shacab waa la barakiciyay sargaal waa la barakiciyay ciidan waa la barakiciyay cid la dhaafay oo loo jacan jaxay malaha midaan annaga ugu dambeysay xaafadeena ugu dambeysay daraafta iskool buluusiyo cagta la mariyay waxaa deganaa saraakiil waxaa deganaa shacab waxaa deganaa ciidankii xataa qaarkood furmaha jiray caruurtoodii alaabtoodii haweenkoodii ay qabeen bannaankaasaa loo saaray horta waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa leeyahay horta wax tilaabo ay saqaadin mucaarada jiro adduunkan mucaarada muxaafid ku leeyahay maadaama muxaafidku wax qaban waayo mucaaradka inay maanta wax qabtaan isku dayayaan ha yimaadaan mid kale xigto waxaa leeyahay madax xashiq waqtigaagu u dhamaaday waad gabagaboobay shalay farmaajo xabad ku ceersaneys maanta adigana in xabad lagu ceersada isku dayin waxaa sameeyay aragnimo sameey wadanka shalay si aan ugu dhiibay ama iskaga wareeji waxaan mushaar waayo maxaa yeelay mushaarka lagu sheegayo qof walba si ku qaata anaga muhiimadan waxay tahay dalka inuu noo dego anaga waxaan ugu dul qaadanaa baahi aan ugu dul qaadanaa 24 saac wadooyin ay shaqay rafaad iyo ay shaq biyo aan ugu dul qaadanaa barakicin aan ugu dul qaadanaa hooyooyin iyo aabayaal Soomaaliyeed baadiyaha iyo magaalka ku gaajsan aan ugu dul qaadanaa waxa kale oo aan ugu dul qaadanaa maanta ay shaqay traffic oo xoog lacagta noo qaadanayso waxa kale oo ugu dul qaadanaa mishiibiyo xataa lacagta iska saarnayso waxa kale oo ugu dul qaadanaa maanta wax aan ugu dul qaadan ka dawlad ahaan iyo ka cashaar ahaan ma jirto waxaa leeyahay madax xashiq shalay 15 May hadii lagu dabaaldegay oo intii lagu imaado lagu ku banaanbaxaysay maanta lagu banaanbaxa du qaado anaga shalay anaga ceelasha biyaha Itoobiyaan xor u cuni kartii xamar intuu naga qaxiyo ceelasha biyaha oo magaal looga dhigo suldaanka guud bajaajileyda waa ku dhawaay TV-ga haddii joogta waa u sii degdego waddankan mucaarad ma lahan xukuumadda hadda joogtay Xasan Sheekhna ma lahan
waddankan waddan Soomaaliyeed waa annaga iskale anaale adaale kan maqana iskale kan jooga iskale laba qof inay waddankeenu dhahaan adi bax birri waddanka lugta mari kan uu dhaninkii soo baxay magaca ka toogana waa nasiib darro iyo sharci darrada iyo dastuur beenaadka waddanka lagu hayo tilmaanuta way faantaa u maleena haddii waddankeena sharci uu lahaan lahaa sharci dadkan kala reebo waddankeena hadduu lahaan lahaa ma la dhihi lahayn 15 May hal la banaan baxo iyo ma soo bixi kartiin ma la dhihi lahayn ruuxantii waxaan isleeyahay wax la saadaalinayo ama muuqdo oo kuwa filada ku jirna u muuqdo haddii sayis madaalinayd annaga Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed inoo muuqda meesha yaallo waxa inoo muuqdo haddii madaxweynaha waqtigiisa ay maalmaha yara tirsan ka harsan yihiin haddii uu isku dayi waayo maalmahaas yara haray inuu xal la yimaado hadduu isku dayi waayo waxaa dhici doonta wadar iyo waaxid yaa waana casharada bii jiray waxay dhici doonta in yiraahdo wadar iyo waaxid yaa adag madaxweynaha loo tago madaxweynaha waqtigaagu wuu dhamaaday waa soo dhamaaday gacanta laga soo qabto banaanka la keeno Soomaaliya cid danteeda u aragto inay doorato oo lagu kala baxo taas baa soo bixi doonta wax weyn soo bixi maayo wax dib loo soo bixi maayo dalkan madaxweynuhu iska malahan oo naga dhaxeeya anaga shaqada u dirnaa dad ummadda Soomaaliyeed nahay haddii hada wixii la isku talagalay madaxweynuhu uu ilaali waayo خلاص waxaa dhici doonta in dadkii shaqada u dirtay ay dhahaan oo fasaxanta iska bax markaa soo banay filada rakala filada la dooranayo asaguna iska bax taas baa maanta wax weyn ma maayaan meel kala duwan ciidamada geelisada طبعا waxaan leenahay horta marka koobaad madaxweynuhu hadduu aaminsan yahay iyo ragga la taliyaashu oo ku hareeraysan haddii aaminsan yihiin in kursiga xoog lagu joogi karo haddii aaminsan yihiin waxaan leenahay kursiga xoog kuma joogi kartiin annaga idin leh annagoo shacabka Soomaaliyeed baa idin leh dadka Soomaaliyeed boqolkiiba علي محمد الشجاع TTN Somali TV مقدشة waxaan leeyahay dhigaal suuban iyo sooyaal dhaadashale dhalintana agoy dhaxal u yeeshaan dhismihii adoon dhimirkaaga gelin dhacsi iyo soo dharag ma doorbidin adaa dhiiradoo shalay tadhaaraay dhawaa farax le iyo sama ku dhaadaay adaa dhaga nuglaa dhimrina sheegaay dhaqamada dhigaa dhabu dhaliilaya dhaliilada faca dhabaru la taagnaa kolka daansatana dhabarka sii jeetay dhawaqa joogto dhugasho diidaya dhafoorada xirtoo dhugasho diidaya dhadhaabiya adaa dhagaxaya aasaay dhawaqa joojo dhimasho diidaya dhadhaabiya adaa dhagaxaya aasaay dhigga caburiyo dhulkana boobaya dhalanteed lama kala dhaxlo dheel iyo ciyaare dhulka nimankii loo dhaariye talada loo dhibay dhacdiid maxaa baday waqooy dhimirka beelaane dhaxalkuu lahaa ruux dhalaar laga sheegtay dhibna aanu aragoon dhiidhin baa jira dhulka nimankii loo dhaariye talada loo dhiibay dhacdiid maxaa baday waqooy dhimirka beelaane waxaan intaa ku darayaa dhab kolkaan u eegaan dhuuxay taladeena dhan walbaba markii aan u dhigay een dhaayo furan yeeshay dhammaanteen dhadig iyo labood dhaan dabagaallo loo dhiibay baan dhowrtadii nahay cid loo naxayo iyo cid maxaa la yidhaahdaa loo danaynayaa midna ma jirto war waxa weeyaan maanta niisha muxuu ahaa shaatigiisii shaati ma haysto shay uu dhaxanta ka shakaasho oo uu isaga shiraaco ma qabo shafkiisu uu qaawan yahay shay nin kale ayuu huwan yahay markaasoo ayuu wuxuu shaarica la istaagay oo dadka ka gadaya shaal baan soo iibsanayaa shaatina ma haystaya waa ninka yidhi asagoo lacagtii dalka Soomaaliya ay lahayd
qurxin kaliya ay u baahan tahay inuu soo daabaco shaarica la istaago shidaal baan soo saaraya 100 nin oo dhalinyarada Soomaaliyeed magaca qaranka Soomaaliyeed lagu shaqaalaysiiyo ayaa uga fududay taan nin laga waayay ayaa wuxuu ku leeyahay awoodii yani talaabadii ugu weyneed ee dal uu gaaro ugu weyneed horumarkii ugu weynaay ayaan maartay hirgelinaya oo shidaal baan soo saaraya oo nimca la gaaraya uu ku leeyahay dayax gacmood baan hawada u diraya oo cadalaan ka geynaya wax ka jira malahan taasi waa been iyo barkuma taal weeye waxa weeyaan maartay waa gafanayaal waa garagoor ibaha gurisa weeyaan waxay ka naxayaan malahan inay dadka dhacaan boobaan waa yuhuud weeyaan iyo waxa weeyaan gafanayaal caanihii dhulkeeniya dayda iyo karuurkii in yar baa dhamaysoo kaligeed ergaaye dhalintii dhulkayga ma ka dhidiyeyna waxa weeyaan cid u naxaysa malahan waxa weeyaan yaan lanaga gadin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hamidowdo war iskaashada war waxa weeyaan isu taga war waxa weeyaan maartay xoogaga wadaniyiinta iyo mucaaradka meel kasta ka jira iyo ciidaha culanaya ku biira oo is-urursada 35 sano nin wax soo baranayay oo waxa weeyaan maartay cirro ka soo baxdo bilaartu ku fakatay oo waxaad arkaysaa aan maanta ku shilin qayl oo ku iibsado ama xabad sambuusa aan gada karin ayaa jira wariya oo laamiyada ka oo hooyadii wuxuu internet ku shubto weydiisanaya والله أنا وجد بايع تعبان كذا وكوش عن جيب كي وجد أثناء دايلي أدوي أيضا سنة إذا قال هذا قسم اللي بدنا هركس وقاري أنا وجد ده قال شو تبكي غبية تروح ولا غفلة تبصلت أنت أثناء سايم بالعوا وعن كعسلة يا إن عن كليتي تسوق الطبلان كوشتو أدوي لا يرى أنا قال عندي هوية ودن كان وحي نكان أوكينن كرويش الآن هوية نمن وعم تريس الدولة نما وحتريس أنا بدولي إني ما رمنا حس يقولي إني من وماي أنا دافع ما يلفون الله كبير أنا دافع ما رمنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمه عارف كان قرب في سنة يا أخي عارف كم شو قال أنا كانوا أقلينا دوليرة وحان وصار لنا أديب مدحمين حس الشيخ وتلك سوسيد الجيو كتبوا العيال ودعيا هذا قوات كستن سوسيد الجيو ودحليتي سأو ماله ما أدري كيف سووا دماغه وتوسي ديجيتال وزيجو قال لما وريت هذا والله أنا وجد بايع تعبان كذا وكوش عن جيب كي وجد أثناء دايلي أدوي أيضا سنة إذا قال هذا قسم اللي بدنا هركس وقاري أنا وجد ده قال شو تبكي غبية تروح ولا غفلة تبصلت أنت أثناء سايم بالعوا وعن كعسلة يا إن عن كليتي تسوق الطبلان كوشتو أدوي لا يرى أنا قال عندي كلام كوني كوغورة يعني وقلتك سوق برا هدول لا يرى ما عندك خطورة مركان يجي إنه كراي عذار جدود حتى وده عذار يملوا بدل الربع معقولنا من غير صح الشغل هوية ودن كان نكان أوكينن قرويش الآن هوية نمن وعم تريس الدول نما وحتريس أنا بدول نما رمنا حس يقول نمن وماي أنا دافع ما يلفون الله كبير أنا دافع مرمنا معارك الصومالية حق عسرية إن ذلك بالبادية ذلك عدو هاي استدلكان إن كبت بادية أنقع السنة داران أنا محمد عبد الله فرماجي إنه سكارن إنه سكارن معارك وقرب صوتي وذلك الدفاع له عدو يقول أنا أكون شيء ومدن حد الشيخ محمود عدو تلك مرة تلك مرة ومدي وابرك ودك وابرك تلك باهي وقولي
ولا عليه ميو لكن كاسين الجيناي والله بلا تاز إنه سعودي حتى أسيب يصير صار يسوق على قشة الوسوع مسكين حتى أركزوا قال فرقا ما دافع الشيخ محمود إلهي ما دافع إلهي وإنه واحد على سنة إنه سنوسو علينا إنه سنوسو علينا إنه سنوسو علينا إنه إلهي ما دافع ما نحن الله تبع telefishinka TTL Somali TV aad iyo aad ayaan ugu dhowahay waxa weeyaan maanta shucuurteena hay ayay maraysaa boqolkiiba boqol ayay dhaaftay waxa weeyaan haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hal abuurka Soomaaliyeed maartay dalka Soomaaliya dhalinyaradiisa maartay hal abuurka ayaa ka mid ahay anigu xaaladda maartay xaaladeena cirkaas ay maraysaa raayigayga inaan dhibtaan aad baan ugu faraxsanahay maanta waxa weeyaan maartay haddaan barnaamijka guda galo waxa weeyaan maanta dalka Soomaaliya cid u naxaysa iyo dadka Soomaaliyeed cid u naxaysa midnaba ma jirto nin kasta jaabkiisa iyo calooshiisa ayuu u adeegayaa cid u naxaysa ma jirto waa taa la rafaadsan yahay dhalinyaradii iyo guud ahaan bulshadii Soomaaliyeed habeen madow guryaha loogu galayo oo la dhacayo oo la dhibaateynayo cid loo naxayo ma lahan dhalinyaradii Soomaaliyeed mid shabaab u gala mid tahriiba mid maxaa la yiraahdaa bajaaj la noqda ee jidka lagu dilo ee canshuurta lagu dalaco ee la xirxiro kii xoriyatul qowlka muxuu raayigiisa cabir maayo xabsi dalaq la siiyo ayay noqotay